waxaa sharaf ah inaan caawa halkan isugu nimaadno sagootinta xildhibaanadii golaha lixaad intoodii hawshoodii ay dhamaatay xildhibaanadaas oo runtii taariikhda deegaanka wixii u hagaagsan qayb ka ah 5 sano ee hadda doorashadii hore wax fara badan baa deegaanka noloshiisa ka hagaagtay iyo shacabkeena marqaati waxaa ka maaragtay duruufaha maanta dadkeena ay ku nool yihiin aad uga duwan yihiin kuwii 5 sano ka hor dhanka horumarka dhanka nabadgelyada dhanka xorriyadda dhanka dhisidda nidaam dawli ah miisaaniyadda maanta aan ansixinay baa markhaati ka ah kobaca dhaqaale ee deegaankeena suurtagal ma noqoteen inaan haweysano lacag intaa leeg oo gudaha dakhliga gudaha waddanka laga soo saarayo deegaankeena inaan haweysano haddii ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee deegaanku una wanaagsanin marka taariikhdaas waa wada leenahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin waa taariikh aad ku faani kartaan xildhibaanadii golaha lixaad dhammaantiin dabcan sidii ilaa shalay baan u wada hadlaynay qayb ka mid ah waajibaadkiinii ama dhinaca aad ka joogteen baa dhammaaday waajibkii ka saarnaa bulshadu ma dhammaanin baahida bulshadu idin qabtay inaad u adeegtaanna ma dhammaan labadaba marka waxaan rajeynayaa in badankiinu siyaabo kala duwan oo aad adeegiina u soo wadi doontaan insha Allah hadii la yahay eegaba kuwa fara badan oo dadka la sugootiyay xildhibaannimo baa laga sugootiyay xeel dawladda kuwa ayaa jira heerar kala duwan kuwa magacaaban kuwa waayay technocrats oo shaqeynaya jira shaqooyinkaasna waa waxa dadka ugu adeegaysaan kuwa la sugootiyo caawa halkan u joogno laga yaabo inay ku jirin category-ga aan sheegay iyagana waxa waajib naga saaran yahay daryeelkooda iyo waxay abaalmarintooda taana insha Allah waan ka soo dhalaali doonaa waan ka soo bixi doonaa sidaan rajaynayo dhammaanteen waxaynu u taaganahay waajibaadkii shacabka inaan gudano haddii xildhibaan aan nahay haddayna nahay dad fara badan oo xildhibaan ah banaanka jooga habeen maalin dhacaya ama ka shaqeynaya hawlo qaran baa jira kuwa nabadda ka shaqeynaya kuwa nolosha dadka ka shaqeynaya kuwa fara badan baa jira marka nasiib baan leenahay inagu inaan nahay kuwa lagu maamuso waajibaadka iyo shaqo ay qabtaan oo shacabku u og yihiin kuwa fara badan oo aan loo ogeyn wax fara badan qabtaa jira marka mar kale kulan wanaagsan xildhibaanadaasna insha Allah hadii la yiraahdo kulamo waan la yeelan doonaa maalmaha soo socda insha Allah hadii la yiraahdo in badan oo aan wada joognay inaan hadana si fiican loo sheekaysto oo wixii dardaarana fagaraha ay ka sheegeen waxaan ahayn aan dhigaysanada diyaar baan u nahay nidaamka dawligeena waa qoriisu dhiib aabayaasheen iyo dadkii naga horreeyay meel bay soo gaarsiiyeen inagu meel bay soo gaarsiinaynaa kuwa naga dambeeya meel kale sii gaarsiinaya waxaan rajaynaynaa in qoriisu dhiibkaas ay ka dhalato bulsho ka baxda dhibaatooyinkii ay ku jirtay maanta dadkeena waxa u dhaqan dhammaantood waxa sabab u ah dawladnimada waa halaba saacadood ama 3 saacadood dawlad la'aan dadku ma ahaan karaan waxa la bini'aadamku abuurtay ay sameeyeen gawaarida iyo diyaaradaha iyo duuhayay dawooyinkii wax walba waxa ka xoog badan dawladnimada waa intaas oo khalqiya qaabkii loo kala habeyn lahaa ay u noolaan lahaayeen in la jiheeyo shuruucdii in la dhiso marka nidaamka dawliga inuu inoo dhisnaadaan kaalintiina aan ka ciyaarno degmooyinka oo dhan caawa meelaha dadka jooga mushaarka qaadanaya kuwa amniga ilaalinaya kuwa amnigooda la ilaalinaya wax walba waxay suurtagal ku tahay maadaama nidaam dawli haysano nidaamkaas dawliga marka mas'uuliyad baa naga wada saaran inaan sii xoojino taanayna ku baraarugsanaataan ayaan rajaynayaa xildhibaanada xisbiga waad u badnaydeen waxaan malaynayaa marka laga tago xubno kooban oo ahaa kuwa gaar u taagan xildhibaanada la sugootiyo waxaan filayaa badankoodu inay yihiin xildhibaanadii xisbiga taladiina xisbiga in baahaya aad idinku ka mid ahaydeen wixii afkaara iyo wixii ka qaybgala iyo wixii kalena fagaarayaal kale oo kan xildhibaanada aan ahayn ayaa la isugu iman doonaa halkaana waa looga baahan yahay contributionkiini iyo talooyinkiini waa loo baahan yahay sidaa inaad ogaataan ayaan loo baahan yahay insha Allah hadii aan waxaan rajaynaynaa waxaad ku farxdaan inaad la kulmi doontaan nidaamka dawliga ee noo dhisnaana inuu meel fiican sii gaari doono ayaan ku rajaynahay aad iyo aad baad mahadsantihiin habeen wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh